رحمن ساعدني يا رحمن اشرح kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada mowduucina maanta oo aynu kaga hadli doono kalsoonida nafta ugu horeyn waxaynu si fiican u qeexi doonaa kalsoonida naftu waxay tahay kadibna waxaynu ku xijin doonaa 9 talaabo oo aad si cajiib ah ugu kobcin kartid kalsoonida aad naftaada ka qabto haddaba waa maxay kalsoonida naftu waa rumaysnaanta aad aaminsan tahay inaad wax u qaban karto sida ugu saxsan amba aad xaalad ula tacaali karto sida ugu macquulsan waxaana xaqiiqo ah haddii aad bilaa kalsooni tahay inaad lumin doonto fursado badan oo aad heli karto sababtoo ah waxaad ka baqan doontaa waxaanad hubin inaad la kulanto iyo in kale haddaba xaggee bay ka timaadaa kalsoonida nafta weligeed lama dhaxlo waa wax la barto weligaana hayso inaad kalsoonida waalidka kalsoonidu ma aha dabeecad guud ee waxaad leedahay heerar kala duwan oo kalsooni ah taasoo ku xidhan hawlaha kala duwan ee aad qabato tusaale ahaan waxa laga yaabaa inaad ku kalsoon tahay awoodda aad baaskiil ku kaxayn karto balse aad ka baqan karto inaad dad hadal u jeediso haddaba kalsoonida naftu ma aha mid joogta mar way fiicnaataa mar way xumaataa kolba waa wax ku xidhan xaaladda iyo waayaha aad ku sugan tahay ee noloshaada haddii aynu eegno kalsoonida naftu waxay tahay halkay ka soo jeedo iyo xaqiiqooyinka ku saabsan haddii aynu ogaanay aynu u galno 9 talaabo oo si cajiib ah aad ugu kobcin kartid kalsoonida naftaada qodobka koobaad number 1 si taban oo positive ah ula hadal naftaada sida aad naftaada ula hadashaa isla markaana aad u malaysaa waxay saameyn aad u ballaaran ku leedahay kalsoonida naftaada haddaad naftaada ugu sheekayso inaanad fiicnayn isla markaana aad hoos u dhigto oo aad liido waxa hubaal ah inaad yeelan doonto kalsooni aad u hooseysa oo aad aamini doonto hadalkaaga si aad kalsoonidaada haddaba aad sare ugu qaado walaalo si aad kalsoonidaada sare ugu qaado ka fogow inaad naftaada kula hadasho hadallo badan oo negative ah badana dhool cadee kuna hareereen isla markaana positive ah taas waxay ku saamaxaysaa inuu dareenkaagu ka wacnaado sidii hore isla markaana dadka aad la joogtaa waxay xiiseyn doonaan la joogitaankaaga iyo weelkaaga qodobka labaad number 2 ha barbar dhigin naftaada dadka kale waa qodob aad muhiim ah number 2 dadku badankoodu waxay sameeyaan caado xun oo ah inay barbar dhigaan naftooda dadka kale iyagoo ka eegaya dhinacyo badan sida waxay haystaan hantidooda quruxdooda farxadooda ay ku nool yihiin iyo nolol maalmeedkooda iyo qaar kale oo badan dhibaatada ay arrintaas leedahay ayaa ah mid kasta oo kamid ah saaxiibada ama qoyskaaga ama dadkaaga aad taqaanaa ay leeyihiin wax u gaar ayaga oo aan adigu lahayn haddii aad joogtayso inaad naftaada barbar dhigto qof kasta oo aad la kulanto waxaa qiimo tirmi doonta naftaada taasi oo sababi karta walaal in kalsoonida naftaada oo dhulka ay gasho qodobka saddexaad number 3 ku qanac waxa uu Allah subhanahu wa ta'ala ku siiyay ogow haddii aad ogow qof hadduu haysto waxaan adigu haysan ayna taasi ka dhignayn inuu qofkaasi adiga ka fiicin faham ka taajirsan yahay amba uu ka caansan yahay amba uu xitaa ka aqli badan yahay inaad leedahay adu wax badan oo aad adigu leedahay laakiin si aanu isagu lahayn qodobka afraad si fiican walaal baro naftaada aqbalna sidaa tahay sida Allah ku abuuray ee sida muuqaalahana tahay sida aad aqoonta leedahay ee waxa Ilaahay ku siiyay naftaada baro si fiican u baro dabeecadahaaga dhaqankaaga kadibna ku qanac qodobka shanaad number 5 qurxi muuqaalkaaga si fiican u labiso tan waxay u muuqataa wax iska cad wajiida sida labiska quruxda badan ee ah xirashada meerashada oo saameeyo kalsoonida nafta iyo sawirkaad ka haysata naftaada qodobka lixaad number 6 ficil laanta qodobka lixaad samee xarakaad iyo ficil laantu waxay tarmisaa shakiga iyo cabsida ficilkuna waxa uu tarmiyaa kalsoonida iyo dhiiranaanta waxaad ka soo qaadaa inaanad ku kalsoonayn awoodda aad u leedahay ciyaarida nooc ka mid ah sportiga sida ugu fiican ee aad ku baran kartaa walaal waa inaad maalin walba samaysaa tababar aad ku celceliso ilaa aad ka baranayso sida saxda ee loo ciyaaro dhammaan xirfadaha kalena walaal waa sidaas oo kale haddii aad gurigaaga fadhido oo aad ka fikirto wax ka sii daraya mooyaane wax kale ku hagaagimayeen inaad xarakaad iyo ficil samaysaa waxay sare u qaadaysaa kalsoonida aad ku qabto naftaada
qodobka toddobaad diyaargarow samee diyaargarow samee furaha ugu muhiimsan ee guusha lagu galo filashada aad ka filanaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala wax fi iyo ku kalsoonaanta awoodaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey furaha ugu muhiimsan ee lagu gaaro kalsoonida naftuna waa diyaar aad bay u adag tahay inaad ku kalsoonaato naftaada haddii aad aaminsan inaanad shay si fiican u qaban karin karbaash oo ka adkoo dareenkaaga adigoo diyaarinaya naftaada inta ugu badan ee suurtagalka ah ka fikri marka imtixaan lagaa qaadayo tusaalahaan haddii aanad wax akhris badan sii samayn kalsooni badan ka haysan maysid awooddaada ah imtixaankaas inaad si fiican uga shaqayn karto balse haddii aad akhrido oo aad diyaargarowdo waxaad yeelanaysaa kalsooni aad u badan haddaba imaka uga fikir noloshaada imtixaan aad gelaysid oo kale diyaarina naftaada qodobka 8aad si qun yar ah oo tartiiba u hadal waa wax aad u fudud oo lagala yaabo inaad la yaabto balse waxay saameyn aad u weyn ku leedahay siday dadku ku arkaan dadka awoodda leh ee wax xukuma si tartiib ah u hadlaan tanina waxay ku siinaysaa kalsooni qofka aaminsan inaanu u qalbin in la dhageysto hore ayuu hadalkooda dejiyaa sababtoo ah iskuma kalsoona isku day taas inaad samayso dhowr jeer waxaad dareemi doontaa kalsooni aad u badan laakiin si ha ku sii talax tegin adigoo qiimeynaya xaalad walba codka ku habboon kana fogow inaad hadalkaaga dejiso for example qofkaa fog waa inaad codku 5 mitir qofku jira codku ku maqli karo in codka yarka dhacda qof kula fadhiyana waa inaad la hadashaa si qof kula fadhiyo codkaadu gaabisa waxaan aragnaa dad imika dadkeena badan ka Soomaalida telefoon markay ku hadlayna qaylinaayo oo masaafo fog aad ka maqli waxay baxnimada tilmaamaysaa diinteenu ay sheegaysaa inaad codkaaga kulba xaaladda uu ku habooyay aad u isticmaashid luqmaanul xakiim la yiraahdo oo xikmad badnaa oo quraankana lagu sheegay quraankeena kariimka laguma soo qaato wax iska malaayacniya quraankeena kariimka lagu sheegay ayaa wuxuu inaysa ku dardaarmaya sida dameerka inaanu qaylin oo codkiisa aan cid walba qayladiisa saa aanu qaylin si xikmadaysan oo asluubaysan inuu hadlo markaad hadlaysid codkaaga intaad kolba uga baahantay isticmaal qodobka 9aad ee ugu dambeeya barnaamijkeena aynu maanta kaga hadlaynay kalsoonida waa daji hadafyo yaryar oo kula guuleyso dadku badanaa waxay dejistaan hadafyo aan la gaari karin markay ku fashilmaan way niyad jabaan haddaba xaggaad ka dejisan hadaf weyn dejiso hadafyo yaryar oo aad ku gaari karto hadafkaaga weyn isla markaana ku guuleyso markaasina ku guuleyso waxaad dareemi doontaa kalsooni markasta oo aad ku guuleysato hadaf ka mid ah hadafyadaada taasina waxay naftaada u noqonaysaa dhiirigelin iyo meel ay ka shidaal qaadato qodobkaasi daawadayaal waa qodobkii ugu dambeeyay barnaamijkeena maanta aynu kaga hadlaynay kalsoonida nafta haddaba intaan ku kulmi doono barnaamijkani la mid ah waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin meel walba caalamka ka joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh